waxaan anigu aaminsanahay madaxweyne mustaqbal ahaan in shaqo la'aantu qayb ka mid ay tahay mid la sameeyay markaan eegay sababo far badan awgeed jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad moodaa in dad fara badan oo bilaa camal ay ku nool yihiin haddana waxaa la doonaa dad shaqeeya oo shaqaalaha waa la raadiyaa waxaa jirta qodob ah isfahan la'aan bulshadii loo shaqeynayay iyo dadkii dhalinyarada ah ee aqoonyahanka ee shaqadoonka ahaa ninka dhalinyarada shaqadoonka ah marka tiraahdo maxay u shaqeynayaan wuxuu oranayaa aqoonyahan baan ahay jaamacad baan ka soo baxay ama dugsi sare ka soo baxay mushaharka la siinayaa wax aanan igu filnayn nin dhalinyaro baa tahay waxaad qaadanaysaa haday $100 tahay ku kafeyn karaysaa haddaan reer iyo xaas lahayn inaad qabato shaqada weyn bay kugu tilmaamaysaa marka dhalinyaradu iyagoo xagga bulshadii marka hadduu meel yar ka shaqeeyo waxa la oranayaa ninkii aqoonyahanka ah nooca ahaa wuxuu ka shaqeeyaa meel yar aan waxba ka dawahayn dabeetana dadka ayaa ku kalifaya in qofkaas uu bilaa camal noqdo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyada ayaa sameysay waxa la yiraahdo bilaa camalka sababtoo ay tahay tusaale haddaan soo qaado nin ka mid ah reer miyi baan subaxda ka mid ah anigoo shaqo taga ayaan soo qaaday gaarigaygaan ku soo qaaday waa la sheekaystay wuxuu yiri miyigan ka yimi waxaan ahay shaqo tag kuuligan ka shaqaystaa shalay maahan shaqo tagin buu sababtoo ay tahay 8 dhalinyaro ah oo aqoonyahan aan guri wada seexano ayaa waxaan ahaa nin kafta badan oo sheeko badan ayaa waxay jeclaysanay inaan la joogo maalinimada aan u sheekeeyo iyaguma shaqo tagaan aqoontoodana kuma faa'iideystaan dabeetana maalintii salaad subax markii la gaaray mid saacadan weydiiyay markaas war wasaqada dhexe iska sii hurud waan hurday buu yiri dabeetana halkaas shaqo la'aanta shalay wax camala maana samaynin saaka laakiin waa ka soo horkalaho qorigoodan qabto waan ka soo cararo hadda shaqo tag baan ahay yoom kuliya baan shaqaystaa kontalaan qaataa ilaa 12,000 laan ayaa igu baxa inta kalena waan dhigtaa dabeetana waxaan ku yiri shaqayso oo dabeetana lacagta kale markaas waxaas iyo reer baan ka imid dabeetana iyaga safar u siinaya marka ay isku kay ururto muddo kadib ayaa ninkiisa aragnay wariyaha balwar khayr ilaahay mahadiyo war maxaa haysaa markaas uu yiri war lacagtii aan shaqaystay u urursanay ma sha Allah de waxna reerkan safar u siinay waxna waan urursanayo meherada ayay gariirflaha ah ayaan samaystay oo aan ku shaqaystayo ma sha Allah reerkayga iyo aniga iyo xitaa kuwii ardayda ah iyo kuwii jaamacadaha ka baxay bil camalkaana iyo soo shaqo tagaan oo ishaxaadaan ka soo qad qofka reer miyiga markuu miyiga ka yimaado magaalada soo galo inta badan nin reer miyiga ka soo gala shaqo aan kuma dhaxdo markii practical wuxuu qabtaa shaqada ugu soo horeysa kamana faaro ismana yiraahdo waxa lagu oranayaa hebel baa shaqada ka shaqeeyay kuuli bay doontaan waa shamaanimay doontaan qaldawala waxay doontaan waxyaabo fara badan bay ka shaqeeyaan ninka reemiyiga ah ma noqdo nin bilaa camal laakiin ninka aqoonyahanka ee magaalada joogay ayaa inta badan ay bilaa camalka ku dhacdaa in aqoontii lagu sameeyo reform oo dadkii say wax ay barteen ugu shaqaysan karaan ayaa loo baahan yahay waxaan ka sugaynaa xukuumadda cusub jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku dhaqan ee u dhashay muwaadinka ah waxa jira islaamaha hooyooyinka ah ee caruurta 10 ama 5 kaga yimid guryaha ama khudradda iibinaya ama waxaan dhaka birta loo yaqaan maryaha ay ku iibinay ama ku iibinay caanaha iibinay dhayli wala la dul taagan yahay bix baa leeyahay canshuurta qofka dalka yimi ee ajnabiga ah wax canshuur lagama qaado waxa kamid ah dadka waxa dalka soo gala oramo fara badan guryaha ka shaqeeyaan qaar waxay sameeyaan lacag fara badan bay sameeyaan oo dhakhtarrada ka shaqeeyaan farmasiyada la keenaa oo shaybaara laga dhigaa qaar baa injineer ah wax dhisa iyagoo dalka injineer ciida ka badan ay joogaan dadkaasi yimaado dalka wax canshuura lagama qaado dawladda hoose tusaale islaamaha haday ku baaqato islaanta yar khudradda iibinaysa kunka laantee laga qaaday canshuurta haday ku qaadato askari ba loo yeeriyaa wala xiraya laakiin qofka kale ajnabiga ah cid dabagelaysa oo oranaysa wada imisa ajnabi inoo jooga maxay canshuurta dalka ay ku waajibtay ma bixiyaan wax isweydiin haba yaraatay ma jirto Allah ilaahay waxaan yara bogaadinaya wajaale maraan joogay waxaan arkay dadka xamaaraha keeriyoolayaasha oo canshuur laga qoray ama oramaha ahaado ama Somaliland ha ahaado mid walba canshuur
ayaa laga qaadaa waa keeriyaalayaasha waan arkay laakiin inta kale jamhuuriyadda Soomaaliland meel aan ku arkay dadka kale ee dadka yimaada cashuur looga qaadayo qofka muwaadinka mooyaan aba yaraadno laakiin ajnabiga ay ka faa'iideysanayna waa inuu ahaado mid cashuurtii dalka ku waajibtay laga qaado waa inuu ahaado oo aan mar walba la saaraa awoodda koowaad in qofkaasi waxa jira shaqooyin fara badan oo dadka aqoon-yahanka ay qaban karayaan haddana waxaa la oranayaa qofkii waxaa la interest garanayaa waxa kaloo dhibaato kale inagu ah qofka markuu ka yimaado jaamacad dibadeed markuu dalka yimaado waxa qiimo gaara baa la siiyaa laakiin qofka dalka aqoonta wax ka bartay jaamacadaha ka barta qiimo weyn lama siiyo dalka waxaa jira dad fara badan oo farsamo yaqaan kabahoo kale barigii hore waa la tulan jiray waa la samaysan jiray dalka gudihiisa kabaha laga heli jiray maanta laakiin ninka farsamo yaqaanka ay dabcan inuu kaba sameeyaa waxaa la oranayaa magacyo aan ku habboonayn bulshada dhexdeeda kan kale is yiraahdo maanta biraha hagaaji oo hadda ka soo qaad biraha solartoo kale iyadoo dheer baa la keenaa iyadoo la heli karayo tan aanu haysanay in la sameeyo oo la xamudo oo la qurxiyo waxay maxaa keenaya ninkii ka shaqeynay baa la oranayaa magacyo aan ku habboonayn dadkan qofkii wala niyad jabinay annaguna ganacsata haddaan nahay waxaan ku qasbannahay in wixii aan u baahnayn haddii aynan dalka dadkii ka shaqeyn lahaa la niyad jabinayo inaan dibadda lacagtii u dirno dabeetana alaabtii sidii aan doonaynay wixii looga soo dhigo dalkan iyo dadkan waxba lama beerto waxna lama soo saarto tacabka la tabcaya ee waqtiga faraha badan la gelinaya ee shaqo abuurka ka imanaya ma sameeyno sababtoo ay tahay inta badan waxyaabaha focuska aan saarno waxa weeye waa qofkaasi hanti intaas uu leeyahay adna sid ku gaadha wallahi dhaqaaqaas uu sameeyay adna dhaqaaqaas samee wax ka duwan oo ka bedelan oo dalkaagi wax ka soo saar shaqo abuur samee adiga nafsadaada iyo koritaankaaga dhaqaale oo ka fakirin ummad kale oo iyadana koritaan dhaqaale sameeyay ha kula jaan qaado ma naqaano waxaan naqaanaa waa kaligii macaash oo waa profit oriented anigu waxaan ku fikirayaa hebel ayaa halkaa gaaray aniguna sameeyay laakiin ku fakari maayo hebel hadduu sidaa sameeyay arrin ka duwan la kaalay dad fara badan shaqo abuur u sameeyay dabeetana dadkaasi isku wada korriin sameeya dhaqaaliin hawada koro dabeetana dad mar wada jaan qaad ha noqdo tusaale baan guriga ku siinay qofka dhalinyarada ah waxaan su'aashii ugu horreysay ah waa la sameeyaa qofka shaqo la'aanta waxyaabaha shaqo la'aanta waxaa jirta ninka dhalinyarada ee aqoon-yahanka waa nin soo koraya aqoon wanaagsan leh u baahan higsi inuu gaaro waxaa loo baahan yahay qof walba aqoon-yahana inuusan oran bilaa camal baan ahay waan iska fadhiyayaa waa inaad ku fikirtaa war hebel halkaasuu gaaray sidee baad ku gaadhaa hantida ay adduunkaasuu samaystay wuu shaqaystay adigu maxaad ka shaqayn kartaa maxaad ku soo kordhin kartaa dalkaaga iyo dadkaaga waa lagu uumay halkaas lagu soo gaarsiiyey uma baahna inaad ku fikirto gacanta hal ay qabto laakiin adoon gacanta lagu qaban sidee baad wax u abuuran kartaa waa hebel oo halkaa gaaray aad u gaari kartaa sidaad u noqon kartaa ganacsad sidaad u noqon kartaa maalgeliye sidaad u noqon kartaa caawiye sidaad u noqon kartaa madaxweyne dhan qabsada sidaad u noqon kartaa waa inaad ku ximidaa waa inaad fikir la timaadaa waa inaad shaqaysataa shaqada ugu horeysa waxa weeye shaqadan iyada iskorisa maanta qofka ku shaqeeya shaqaaluhu waa 3 level baa la yiraahdaa waa qofka dukaamada waxa yar haysta iyo shaqaalaha iyo dadka levelkooda sareeya ee hantidooda tagtay madaxweynayaasha iyo dadka ganacsatada tijaarta waxa weeye qofka shaqaalaha ah ee qofka yar ee dukaamada yar ka soo bilaabay ama gariflaha ka soo bilaabay uu gaara heerkaas hadduu higsado laakiin qofka shaqaalaha ah heerkiisa uu taagay isagu ma dhaafay sababtoo tahay mar walba wuxuu awoodiisa ay la mid tahay inta la siinayay mushaharka fakar kale ee aragtay kale fiisha kale ma laha aniga madaxweyne mustaqbalhan ganacsigu waxaan ka soo bilaabay lacag $500 maantana waxaan ka mid ahay ninka madaxweynaha higsanaya ee ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid marka dhalinyarada waxaan leeyahay ku haminina inaad noqoto qof shaqaale ah oo dad u shaqeeya ku haminina ku hamiya inaad wax abuurataan wax samaysataan dabeetana gaadhaan halkii aad higsiga iyo horumarku ahaa aad iyo aad